bulshada ku dhaqan degmada Yube ee bariga gobolka Sanaag ayaa cod midaysan iskaga fogeeyay inaanay waxba ka jirin warar been abuur ah oo laga faafiyay ciidanka qaranka ee ku sugan deegaanka Yube kuwaas oo la sheegay in qaar ka mid ah ciidanka qaranka ee fadhigoodu yahay magaalada Yube ay u goosteen deegaanka Qardho ee maamul goboleedka Majarteeniya boqorada cuqaasha aqoon-yahanka siyaasiyiinta iyo labeenta haldoorka bulshada deegaanka Yube oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Yube ayaa wax lagu qoslo ku tilmaamay shirqoolka cadowga Soomaaliland ay ku doonayaan inay ku xajimeeyaan bulshada deegaanka Yube ee ku xadhan sooyaalka taariikhda nabadda Soomaaliland iyo dhismaha qarannimada Soomaaliland waxaana shacbiga deegaankaasi ay bulshada reer Soomaaliland u xaqiijiyeen sida aanay marnaba uga suurtoobin bulshada deegaankaasi inay ku kacaan falal hagardaamo ku ah qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliland maadaama ay deegaankaasi ka soo jeedaan bay yiraahdeen mas'uuliyiinta ugu mudan xukuumadda Soomaaliland oo ka yahay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland mudane Ciise Axmed Yuusuf Xawar waxaana ugu horreynba halkaasi ka hadlay boqor Ibraahim Maxamed Xasan Gacmayare ee u soo banbaxay waxay isugu yimaadeen hawshii maalintii dhaweyd laga sii daayay TV-ga Qardho ka baxay la yiri cutubyo ciidamo ah baa soo galay Soomaaliland oo waliba ka yimid degmada Yube ka nimi arintaas waxaanu leenahay waxba kama jiraan waa arin been abuur ah waxaanu leenahay arinta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka qaranka meeshan waa Yube reer Yube jabhadda maaha mana noqonayaan waa dad Soomaaliland waa degmo Soomaaliland taa iyada aad iyo aad baan uga xunahay meeshan waa Yube waa meeshii nabadda laga asaasay ee waqtigii wax dhaceen colaadii dhaceen Soomaaliland oo dhan nabadeeda laga sii asaasay maanta ma horseedayso colaad iyo waxa loo jeedo haddaanu nahay degmada Yube ciidankii degmada Yube ee qaranka wuu joogaa cid ka maqani ma jirto wixii halka laga been abuuranayo waxba kama jiraan meesha tani waxa weeye waa meel nabadgelyo waa meeshii laga asaasay nabadda Soomaaliland ay ku naaloonayso nabad baa naas la nuugole wax naga maqni ma jiraan wixii halka laga sii daayayna waa cambaaraynaynaa wax ka jira ma jiraan Yube waa caasimada galay waa degmada galay oo gobol Soomaaliya ka mida dad jabhad u baxay oo wax ka maqan yihiin ma yihiin annaga waxaan reer Yube waxaan nahay dad Soomaaliland dara dadka maawarada kala dudeen annaga waxba naga qosayaan oo qadho tagay marka waxaan u sheegnaa inaan waxba naga maqnayn waxaan ka fiican ma jiro amniga waan haysanaa wax naga maqnayn ma jiraan dadkaas annaga namaha ciidanna naga tagin ciidankii qaranku waa ka jooga magaaladan waa Yube wax ciidana oo ka goostay oo ka tagayna ma jiraan saaka saad u jeedo waxa soo maray sarkaalka ugu sareeyay qaybta gobolka Sanaag iyo hogaamo la socda iyaguna waa xaqiijiyeen ciidanku inuu sidiisii shaqadiisa u wato oo hawshiisa ku jiro arintaas Qardho laga sheegayo in ciidan Yube ka soo goostana wax ka jira ma jiraan dadka saxaafadaha daawada waxaan kan u mareynaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland deegaankiisu waa Soomaaliland waa deegaan Soomaalilandnimada lagu hubo ku dhimanaya waligiina ahaa waxaan wasiirka leenahay deegaankaaga sidii uu Soomaaliland u ahaa buu yahay waxa iyaguna dhankooda bulshada deegaanka Yube kala hadlay taliyaha qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaanle dhexe Faysal Cabdi Bootan iyo hoggaan ku-xigeenka wacyigelinta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaanle dhexe Maxamed Cumar Askar oo ka mahad celiyay sida diiran ee deegaankaasi loogu soo dhaweeyay iyo waliba sida dadka deegaankaasi ay isaga fogeeyeen dacayadaha ka dhanka qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka mahad celinaynaa sida wanaagsan saaka noogu soo dhaweystay degmada Yube oo aniga markii ugu horeysay anigii hoggaankan taliska guud ka socday saraakiisha kala qaarkoodba markii noogu horeysay ay tahay aad iyo aad sida qiimaha leh ee fiican saaka ciidankii halkan ururkii afraad ee ka tirsanaa guutada 116 ee qaybta saddexaad siday ugu diyaarsan yihiin odayaasha waxgaradka dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamaynaa khayr Allah idin siiyo waxa turxaan tireyseen degmadiinii quruxda badnayd ee Yube oo xajiin aanay lahayn la mariyay annana waa ka marxaati furayna taliyaha ciidanka qaranka wakiilka ka nahay ee aanu halkan marayno taliyaha ciidanka qarankuna annaka warbixintayada iyo sugayo warkayaga wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan madaxda qarankana waxaanu u sheegaynaa oo la socodsiinaynaa in dadka reer Yube ay yihiin dad wanaagsan dad fiican
dad nabadgelyada horena uga shaqeeyay haddeerna ka shaqaynaya dad ay tahay meelihii somalilan nabadgelyadeeda laga yagleelay boqorka halkan maanta sida wanaagsan loogu qaabilay isaga iyo cuqaashiisa iyo waxgaradkiisiina waxaan leeyahay aad iyo aad baad boqor ibraahim u mahadsan tahay waxaan halkan ka caddaynayaa ciidanka qaranku wax gool loogu qaaday ka weyn horta wax nin baxsaday oo meel tegay kaakahaystana ka weyn ciidanka qaranku wuxuu aaminsan yahay calanka Soomaaliland inuu dhiiggiisa u shubo waxa aaminsan yahay ciidanka qaranku ma aaminsana mana aamini doono in la dumiyo Soomaaliland ciidanka qaranku iyo bulshada reer Soomaaliland ee isdhaarsatay ee goosatay ee calanka shanta qayl tawxiidku ku yaal samaysatay ma ogola in calankoodu dumo oo qarannimadoodu dumto oo wada jirkoodu dumo ma ogola waxaan xal ka bixinayaa sheegashada nimanka shacabka ee iska sheegtay ciidan qaran intood maryan loo galiyay ciidanka qarankan ka xaalsaynana jamhuuriyadda Soomaaliland baan ka xaalsaynana reeyub baan ka xaalsaynana waxaan cadaynaynaa ummadda reeyub inay tahay ummad u heelan oo u heegana jiritaanka Soomaaliland iyo difaaca Soomaaliland ومحمود محمد حسن صراف warbaahinta qaranka Somaliland Argao